السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين سلام يا جايز مالك سن شوكتان وولالكين iyo saaxiibkiin Maxamed Shaahid iyo idin ku xiisay idinku sidoo kale saadogtiin channelkeen waxaan ku soo gudbinaa waxyaabaha hadii jeer positivity hadday noqoto entertainment oo aad ku qosli karto ama naftaada farxad gelin karta sidoo kale inaad wax ka kororsato ama wax ka maqnaa ku kaabo channelka cidna wax lagu ma yeelo marka hadii markuu horeysay channelka cusub tahay magacayga Maxamed Shaahid channel subscribe share aad iyo aad ma santahay maanta title ka soo arkaysan ama sida thumbnail ka soo arkaysan channelkan aad keli garaysay waxaynu ka hadli doonaa waxyaabaha hadii jeer nolosha ugu muhiimsan aad iyo aad kana cid kasta u jeceshay hesho shayga oo ah happiness-ka ama farxadda wax la yiraahdo farxadda cid kasta way ogtahay inay muhiim tahay in nolosha muhiim tahay in qalbiga muhiim tahay in maskaxda muhiim tahay inaad shaqo wanaagsan qabato muhiim tahay wax kasta inay muhiim tahay caafimaadkaaga macna wala ogay farxadda marka maanta waxaad kula wadaagi doonaa 7 qodob oo si daily u sameyn doonto ama maalinlahaaga noloshaada ku soo dari doonto kadib aan rajaynayo insha Allah ta'ala in wax badan ka bedel doonaan noloshaada farxadda rabtay raadinaysana ay ku soo kordhi doonaan insha Allah ta'ala qodobka koobaad ee ugu horeeya waxa weeye wadogtiin cidayna abuurtay ilaahay bayna abuuray adduunyadan cidale ilaahay baa leh inaga yaa inala ilaahay baa leh hadii jeer hal duca jirta hadii ducada si fiican fahanto qodobkana si fiican baad fahmaysaa ducadaas waxa weeye ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik wa ala da'atik cid kasta ku ducaysan jirtay ilaahay waxa ku ducaysan jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam in lagu ducaystaana waa khasab markasta in lagu ducaysto adiga weeyaan qalbiyada maxaa la yiri ilaahayga qalbiyada rogrogow ama gidgidiyow qalbigayga wax ku disay rogta diintaada ku fadhiisi thabbit kaga haye marka taam xaalka kaaga ifeeyay wax kaaga ifeeya in markasta ilaahay qalbigaaga rogrogo karo inuu murugana gelin karo farxadna gelin karo marka qodobkeena ugu horeeya waxa weeye inaad ilaahay adeecdo sidoo kale inaad waajibaadkaaga soo baxdo haday salaada tahay hadii aad waxyaabaha xaraamta iska ilaaliso taasoo dhan taas marka maxay keenaysaa inaad hesho farxad laasima u fiirso maalintaad shantaada salaadood dad si fiican u tukato maanta shanta waqtiba si fiican u tukato nafis iyo farxad dareemaysa habeenkii markaas yaanayso in yar ka yar fikirto bila dhimata nafis baa hayga dhiman baa oranaysa waxay ugu gudisoma marka taas waxa weeyaan qodobka koobaad waxa weeye inaad gudato waajibaadka ilaahay rabbina subhanahu wa ta'ala haye qodobka labaad oo ah qodobkaas hadii jeer dadka qaari ay yara diidaan ignore gareeyaan dadka qaarna aanay ogeyn oo aanay ogaal u lahayn laakiin ay sameeyaan oo kale qodobkaas waxa weeye inaad dadka jeceshay waqti la qaato dadka jeceshay noqon karaan faamigaaga walaalaha asxaabtaada cid kastoo aad jeceshood agtooda nafis ku tahay inaad waqti la qaadato waa muhiim inaad waraysato xaaladiina ka warama in hadii graduation jiraan in hadii aroos jiraan in hadii xaflado kale jiraan aad waqti la qaadato qofka dad hadii siin karto aad siiso muhiim ah inaad wax weysiisaa dad buskuda siin karto waxa weyn ma waxa ka weyn micnaha iyo waxyaabaha ka dambeeya ayaa ka weyn micnaha guuleedo ay xambaarsan tahay ayaa ka weyn marka qodobkaas waa maxay inaad waqti la qaadato dadka jeceshay cid doontina oo cid kasto jeceshay waqti la qaado qodobka saddexaad waxa weeye inaad goal samaysato goal maxaa looga jeedaa hadaf iyo himilooyin inaad samaysato qaar dhow iyo qaar fog imika kale tusaale ahaan meel baad u socotaa berbero kale sheekho kale meel baad u socotaa tusaale ahaan meeshii gaariga la socotay meel ka jabay taari baa yara qarxay bir baa yara jabtay egma murugoonaysid sababta murugoonay ma garanaysaa meeshii aad u socotay oo ogtahay toos wad garanaysaa meeshii aad u socotay marka maxay odhanaysaa xal bad raadinaysaa laakiin di gaari lagu soo saaro gaari caana lagu soo saaro meel keen tuula ma garanaysid meel loo socdo gaarigi waa jagood calacalasa niyo meesha bilow gobolku nagu dhaca ila xayawaan nagu cuna maxay eeg waxyaabahaas oo meesha u socotay ma garanayso marka dareenku kala duwanaanaya marka inaad vision iyo goal isla hata qaar dhow oo waqtiga dhow iyo qaar fog mustaqbalka fogi aad iyo aad bay muhiim yihiin farxadaadana way ka qayb qaadanayaan bal tijaabi qodobka afraad oo ah inaad samayso waxyaabaha jeceshay wax laga yaabaa inaad jeceshay editing iyo waxyaabaha inaad digrayso inaad video samayso inaad sawiro qurqurux badan oo magic ka samayso samee wax jeceshay inaad ku bad ciyaarto ciyaar wax jeceshay games ka ciyaarto ciyaar laakiin as-saa'a bi-saa'a oo inaad ku dhaqantaayo waxa ku dabaqda rulka ah as-saa'a bi-saa'a saacada wixeeda waqtina wixiisa ku khaldin waqtiga salaada ciyaar ku khaldin waqtiga hurdada wax kale ku khaldin marka laakiin waxyaabaha jeceshay inaad samayso waxay ku keenaysaa inaad farxad hesho waxyaabo ku adkaaday waxay fahmi waayay break yara qaado sirdaji game bad jeceshay game ku jirta game yara ciyaar maskaxdaadii way soo yar rugmanaysa inaad yara seexato jeceshay yara seexo noloshu ma adkaadii jeer iskuma adkay nolosha wax kasta way socdaan habbay wax kasta leeyihiin oo socdaan marka inaad wax jeceshay samaysaa waa muhiim qodobkaas waa maxay waa qodobkii afraad qodobka shanaad oo ah inaad samir yeelato hadii jeer dad u fiirsato dadyow caalamka ugu taajirsan millionaires-ka rag loo yaqaan khatarta caalamka nool iyo ragga businessmanada waaweyn hadda u fiirsato
waxa ka oranayaan patient yelo ama hadii jeer nin waxa laga yahay ragga ugu waaweyn oo taajin caalamka kamid ah ayaa wuxuu weynad patient yelata ama inaad summary yelata wuri ilma yar buu kuma dhali kartid inaad ilmaha yar waxa ku dhashaa 9 bilood buu qaataa laakiin adigu inaad 9 dumara u yeesho ilma yar kuma dhalan karo taasoo micnaha ka dambeeyo yahay inaad summary yelato markaad goalskaaga waxyaabaha dhigato waxaad jeceshahay sameynayso noloshaada soo socoto inaad summary yeelataa waxay ka caawinaysaa inaad farxad hesho inaad garato adduunyadan siday u socoto imika weli maad arag aabo kale intay gabadhiisii uuro ka yeelata ama ilmo yar oo kale caloosha u galay oranayo caroonaya wuxuu ilmahan u dhalay maxay gabadhu u dhalaan wuxuu dhalaa soo wada erkmaysi sababtoo wuxuu garanayaa inuu waqti qaadanayso hooyo sidoo kale oranaysa bil iyadoo ilmeeda calooshiisa oranaysa wuxuu dhalinaya ilmaha baas wuxuu dhalinaya ma jirto sababtoo waxay garanaysaa waqti inuu qaadanayo marka maxaa la yiri waxyaabaha wanaagsan ee fiican waqti ay qaataan marka samriga qodobka lixaad oo ah inaad say yes more tiraahdo video sidoo kale farxada waxaan ka sameeyay sanadka hor baan ka sameeyay channel-kan soo dhigay wadaawan kartaa linkan ku soo dhigay dad doonto rule-ka waan aaminsanaa ilaa iminkana waan aaminsanay say yes macnaheedu yahay inaad hada jeer opportunitiska fursadaha soo baxaa tiraahdo yes waxaa mad qabanay yes safar baad hore u tagin ama magaalada hore orag waxaad aragtay fursad ah inaad ku tagi karto hadiidin yes day waan tagayaa experience farxad waxba ku soo kordhiya waxa lagu shaqada mad qabani sidoo kale mad ka heli lacag iyo waxyaabo saasad ka helaysaa shaqada dad qabato ka waran yes day experience farxad cilmi waxba kaaga kordhiya laakiin marka soo yes day yaraato noodaad badato waa marka soo xirxirnaato boxkan aad ku jirto box noloshaada box noqoto ciriir noqoto marka soo yes tiraado marka soo maskaxdaada si balaarto waxyaabaha experience kanaysa ama waxyaabaha baranaysaana si batana ma si balaadhan taana la soco say yes more qodobka toddobaad ee ugu dambeeya oo ah inaad noqoto qof positive ah be positive inaad positive noqoto qof hadii jeer wanaaga markasta ka fiirnaa noqota adiga iyo dadka kugu xeeranba faa'iido ay u tahay gaar ahaan adiga maskaxiyan nafsiyan iyo farxadaadaba muhiim ay u tahay balka waradii ooga xanuusto balka waradii ayda xanuusto la soo cararto negative noqoto la soo cararto way dhimanaysaa inaad markasta positive hata waxay muhiim tahay caafimaadkaaga iyo farxadaada waa inaad wax kasta positive fikirto wana tiraahdaa insha Allah khayr min noqonaysa insha Allah saaysa marka wax lagu sheego waan dhageysataa wana tiraahdaa saa oo hadday saa tahay meesha aysan noqotay maxay noqotaysaa iska ilaali weliga la qof wax noqonaysa caafimaadkaagu yaraanaya sidoo kale wax yaraanaya samirkaaga wax yaraanaya farxadaada wax kasta ku yaraanaya marka inaad positive aad aad ay muhiim u tahay kamaan videoga waxa rajaynaad ka faa'iideen sidoo kale waxa rajaynaad farxadiina ilaashataan toddobada qodob batijaabi si dheeri oo samee waxyaabaha kugu soo imaada bal si dheeri oo samee toddobada qodob insha Allah waxa rajaynaad isbedel arki doonto comment below hadii qodobo kale ay jiraan aad igu soo daraysa aniga laftirkeyga u baahanay wax igu soo darto ma garanaysa kaliya ma aha inaad dhegeysto tiraa waxaan ka faa'iiday aniga laftirkeyga faa'iido u baahanay marka comment below aad baan islaam guys video waxay ku kulmeen waaniga Maxamed Shaahid oo idin leh be safe insha Allah markasta is ilaaliyo markasta farxadiina ilaashada ilaahay barkeeyo aad baan islaamiyay aad noo idin jeclay